imisa markaa de waxaan dareemaya waxaan kuugu soo sharixi karaa kan maahaba kalgacayl way dhaaftay waxay igu yidhi markay ahayd 9kii buu igu yidhi BBC hadday ka baxday berina shaqaan leeyahay so waan iska seexanayaa ma fadhigaa iska seexanaysaa oo halkaaga baad iska seexanaysaa daalkan waad iskala qabsatay mise waxaa soo seexanaysaa qolka qolka cibaadada markaasaa waxaan ku yidhi saad shahay waad maqlaysaan gabdhuhu weligeed kuma odhanayaan fadhiga hurdada soo seexana ma odhan karto saa jecesha ku lahaa waa saa jecesha mugsoo garaaca saa jeceshay yaa waxaan ku yidhi saad jeceshahay markaasuu igu yidhi isagu maya adaan kuu daynaya raaxadaada markaasaan iska aamusay intuu soo kacay uu cabdiqaadir oo saa labada gacmood qabtay ayuu aniga dhan koray qaaday markaasuu qolka jiifkii geeyey hadre markuu i geeyey waxaan ku yidhi waxoog baabad leedahay markaa kastoo adduunka ugu xoog badan buu yidhi moogtahay inayna ninka xoog badnayne anigu maan doonin inaan ku qasbo ama wax ku yeelo laakiin waan ku qaadi karaa because waan ku rabaa cabdiqaadir uu i qaaday halkii baa waxaan ku idhi dee bismillaahi araxmaan araxiim dee waxaan ku leeyahay taankii qurxay waxaan ku leeyahay dee again anoo fadhi wanaag ah waxaan ku waagi baryey adkaatay again talo quraacdii ma karanaysaa months and half waa first call ma fahanti waxaan gaadhay I can't wait intuu qadada imanayaan aan isaga arkaya jacaylaan u qabo jacayl baad u qabtaa mise thank you Faadimo Caliye ninkii waan ka helay cabdiqaadirow jeclaaday waxaan ku idhi ninkii aad iyo aad baan u jeclaaday ninkii markaan jeclaaday ayaan aabahayna jeclaaday waxaan ku idhi ninkii wuxuu noqday nin reer magaal ah aad u wanaagsan cabdiqaadirow i jecel wax walba ila jecel aad iyo aad ii jecel waxaan u dhalay uur baan isla markiiba yeeshay waxaan dhalay gabadh ilaahay baa gabadhigu irsaaqay waxaan noqday reer buuxa reer jacayl ku abuuran kalgacayl ixtiraam wanaag weliga aniga ninkaygu maya iyo kiris kumaanaan qabanin haddana gabadhii labaad baan dhalay 2 gabdhood baan dhalay ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin anoo gabadhii saddexaad uurkeeda leh ayaa cabdiqaadirow dad baa waxay ku yidhaahdeen niyow hay-adanaad la socoto shaqo fiican male waxaa jira shaqooyin kaloo ka fiican baa jira oo la qabto keen meel Soomaaliya ka mid ah oo dagaal ka socday oo hay'ad cusub iyo ay joogeen shaqo cusub laga bilaabo meeshii buu tagay cabdiqaadirow للأسف الشديد jacaylkaygii meeshii ayuu ku dhintay qarax meeshii ka dhacay ayuu ku dhintay markuu dhintay Allah yarxam arraahimiin waxaan noqday gorayay gabal ku dhac hadday adkaan doontaa asxaabay biliis shaashadana noo garaaca inoo sheer gareeya reerkiinu ama dadkiinu ama ehelkaagu waxay ku rabaan markaad waxaysato laakiin markaadan waxba haysan qofna kuma rabo dahabkaygii iyo waxaygi ilmuhu yaryar yihiin halaal sana u dhexeeya cabdiqaadir waxay ku dhacay inaan wixii xoolihii isku wada dhameeyey aan dee ilmihii kira ku bixi waan dhalay wiil baan dhalay 2 gabdhood iyo wiil baan haystaa cid alla cid wax ii qabata cid alla cid wax ii tarta ayaan waayey hooyaday bas ayaa waxay ii keenta raashinka guriga haaf ii keenta hal qol baan ku uruuray hal qol markaan ku aruuray cabdiqaadirow waxaan guursaday sanad kadib nin waxaan helay dukaanaan ka adeegan jiray lahaa wuxuu igu yidhi carruurtaan kula korinayaa haddaad doonaysa carruurta inaan kula koriyo maxaan ku dhahaayey waa inaad anigana hal ilmaan haystaa oo aan gabadh kusoo kala tagnay marka iima sheegin wiilay gabadho xitaa anamaan weydiinba because amba 3 carruuraan wataaye waxaan ka diiday ninka ilmihiisa waaba qaladee cabdiqaadir waan baxay waayahay baan ku idhi wuxuu igu yidhi dukaanka waad ila iibinaysaa ma diidi kartid
cabdiqaadirow waxay igu dhacday waad heli irsaaqada ilaahay baa bixiya laakiin ninkan waxaan u arkaa qof wanaagsan cabdiqaadirow waan guursaday dukaankii baan gelin la iibiyaa ka shaqeeyaa wax kasta la qabo cabdiqaadirow wiilka uu ninkani wato waa wiil yar xanuunsan oo xagga xiskaa mana ii sheegin wiilku inuu xanuunsan yahay hadda adkaatay marka ha iima sheegin inuu wiilkeena xanuunsan yahay haye guys samuurada adkaatay ka dhiga adkaatay sheekada hadda adkaatay ha iima sheeginoo wiilkani wuu xanuunsan yahay imu odhan haye wiilku cabdiqaadirow waa wiil 12 sano jira gabadhayda curad gabadh aamusan oo gabdhaha oo ma aragtay hadhadla maaha gabadh aamusan cabdiqaadirow dharbaaxshu kala dhacay tii ku xigtay buu dharbaaxsho kala dhacay dhagaha gabadhayda dheg baa qaraxday dhegta qaraxday waxaan moodayaa dheg u qaraxday de xanuun infection ku dhacay ayaan moodayaa marka laa xawla walaa quwata yaa dilay marka isagaa dilay ninkan baa dilay ninkaaga mise wiilkiisa haye cabdiqaadir wuu dilay dhegta markuu ku dhuftay waxaan isleeyahay gabadha way xanuunsantay gabadha infection baa dhagayga ka dhacay gabadhayda dhagaha laga hayaa mar walba waxaan taaganahay dhakhtar farmasi baan taaganahay qalajiyo siiya farmasi walba qalajiyo cabdiqaadirow heer waxaan gaadhay inanta yar dhegta aan suuf kaga nadiifiyo saa malaxda u da'aysa malaxdu dhegta u da'ayso oo mar walba dhegta ay qarxayso sorry waxa dhacday wiilkaygu wuu yar dhib badnaa maxamuud xabiibti waxa dhacday dhibaatada ay haysataa waxay tahay in ninkii markaan ku idhi gabadhaadu kiniin iyo fitamiin iyo adduunyaad ku dhamayso waxba uma tarayso waadna dhibteen kan waxaan ku marka dambe kiniinkan hooyada bay iga bixinaysaa waxaan u baahanahay hooyada waxay ku tiri hooyo wiilkan yar intuu rafaadi lahaa balanbalin anaa ku haynaya labadaada gabdhood iyo ninka wiilkiisa uu isla joogo wiil ka yar anaa ku haynaya ka rafaa ka fikirin caanihiisa iyo wixiisa waa iskaga tegay ninka reerkoodii $100 buu isiiyaa wiil isaga walaalkii boqol siiyo hay'ad u shaqeeya ninka reerkooda xataa dad wax haysto oo maaragtay waxba ma isaga ninku shaqaysan jiray ehelkiisa waa meesha iyaga ma yaalo waxa ma haystaan kan boqolka isiiya xataa cunuhis qabanaya kama carruur badan buu haystaa laakiin nin wanaagsan buu ahaayo cunuhis qabtay cabdiqaadirow gabadhaydan ismalihi ninkan baa dhagaha ka tuma gabadha yar gabadhayda weyn waxay igu tiri hooyo maxaan ku irahdaa walaashay ninkan baa dila marka ay tiri ayaa waxaan kuri siduu u dila waxay tiri hooyo waxiikan buu ku yidhahdaa hadday diidana labada dhagood ayuu dhirbaxsho kaga garaacaa qumanka iyo dhaguhu ka dilaa thank you faaduma cali qumanka iyo dhaguhu dhirbaxsho kaga garaacaa mar walba hooyo wuu dilaa anna wuxuu igu yidhahdaa dad aabiyo hooyo u sheegtay waan ku dilayaa hooyoy macaaney anigana hooyo ufta ayuu gacanta ii saaraa uftu gacanta ii saarayaa adkaatay uftu gacanta u saara maxaa waaye guys maxaya ufta hooyo gacanta ii saaraa aniga waan yaabay erkigii ama kaag baa igu dhacay adkaatay garan mayne baadamay maanta dhan baan kuu yeedhay xaggaad ku maqanay intuu cabdiqaadir soo tukanay saytuun suusu baa iga sii gurtee waxa dhacday iyaanan hadal idinku daalanine uftii markay i tiri ayaa waxaan kuhi hooyo maxaa ka wadaa ufta gabadhii weynadii iyadii baan kaxeeyey meel banaanaan tagay waxaan kuhi hooyo see wuxuu jiraan waxay tiri hooyo cabdiqaadirow horta waan ka xumay sorry gabadha sheekada iisoo dhiibtay qolkay ku jirtaa waxa lagu qoslana maa inaan ka sheekeeyo inaan qosla may ahayn sorry walaal macaaney bini aadan baana waa iska ogtay dadku meydka oo yaallo oon la qaadin bay iska qoslaan bini aadan qalbigeena dhagaxa raalliga ahaw gabadhii way qaaday gabadheedii yareed bay qaaday gabadheedii baan qaaday waxaan la tegay xagga dambaan la tegay waan weydiiyey labadoodii gabadha yar maaragtay 7 jirka ah ayuu maxaan ku dhahaayey gacan
saasoo gacantu ii saaraa markaan anu ku yidhi walaashay ka fuq heer baa marka ka aqli badan oo qaylo badan oo war badan hooyay saas dila dhegtu igu dhuftay markasta walaasha gac ayuu u saara anigana baxsha dhegta ii garaacay maxaan ku dhahaa wuuna tuutuujiyaa wiilku marka waan arkay dhowr mar de cilmaha maaragtay xaaladiisu maaragtay anteenadiisu BBC iska daaran tahay waxaan de waa ilmo yaroo waa ilmo marta 12 jir iska ahaada laakiinse de waa ilmo yaroo walaalkooda oo anu waxa maskaxdayga ma gelin cabdiqaadir oo ninkii alleen afan kugu olin ma qabto ninkii waanu yeeray waxaan ku risaayay saasi waa kay guri yaa maxaa tiri nayaa buu yidhi bahal yahay bilaa xayada bilaa shoodka ah ninkani imaba yaqaana aniga ragga inaan sabaaxadeeyo oo isaga inaan dilo oon dukaankiisa ku dhex dilo oon oomada iyo saliidda iyo waxa taydha meesha taal aan ugu dhex qabayn karo ima yaqaano dhurwaan nimaan aqoon baa hilib ku rarta waxaa la arqoyna dacwaa la moodaa noocii la dilayay ooyayay inaanan ahaynba wari ka maqantay waxaan ku uri gabdhahaygu been ma yaqaanaane saasaa dhacday wiilka waxaad ku tiraadaa gabdhaha arin ku dhe markaa lootarigii markaasaan xariyay cabdiqaadir lootari waa igu maqan yahay faraha u saaran be ufta waxaad ku tiraadaa gabdhahayga waa walaalada mana taaban karo u sheeg gabdhahayga farna ma saari karo ufna uma saari karo weliba gabdhahayga dhakhtar baan geynaya gabadhayda ufbaa farmasiyaalkanaan geeyo waxaa yidhi waa gabadhayda waa alxamdulilah waa ka yidhi yaad sheegaysaa yaa u malayn maa wiilka ul buu u qaatay 2 jeer buu kaga dhuftay ul dhabar waryaa waxaas ma samay aabo may way baaba wax ma samayna waa ka igu yiri inta qolkii soo gal haday ilmaha dhexdoodan kaaga xishoonayay mar dambe hadaad tiraa wiilkayga waxaas wiilkayga been ma sheegay gabdhahaagan qurunka ahoo reeqan saxa oo maxaan ku dhahay marka hore reeqan sax oo saasay ahaayeen kan ma moodaa qabiilkiisa in quraanka lagu sheego la yiri iyo xadiis ka sheekaysay hada oday yar Soomaali lagu mulufsan baa isaga ba dhalay Soomaali wax ma dhaam waxa dhacday cabdiqaadir oo Soomaali marka ilmahayga qabiilkoodii markaasaan ku iri ada qabiilkaaga ma xadiista iyo horeere ma soo wariyay qabiilkaaga waxba isma dhaama 2 oday oo Soomaali gaajo ku disho geedo hoostood ku dhintay 60meeyadu baan ka wada dhalanay waxa ma haysanay ninna waxa ma dhaama faqri gaajo isku wada mid saan ku iri taani mar hadad ilmahayga wax ka sheeg diri jira naagiisii hore cabdiqaadirow ninkii intaan ku soo booday oon markii u horeysayba halkaas sanka bahal geestaa kaga dhuftay ayuu sanka dhiig ka butaacay bahal geestaa baan halkaas sanka kaga dhuftay تقوم بات منكاغي نينكيده با كسو horeeyay ma bakhaarkii cabdideera ku yaala jirkayga bahal geestaa intaan qaadayo halka kaga dhuftay halka